kadib kulankan maanta uu kula qaatay xafiiskiisa wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dalka wakiilka hay'adda cuntada iyo adduunka ee FAO magaalada Muqdisho waxa ay kaga hadleen sidii hay'adda FAO ay u soo bandhigi lahayd istiraatiijiyada howlgalkeeda Soomaaliya iyo mashaariicda kala duwan ee wadankeena ay ka fulinayso wasiir Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa uu hay'adda FAO kaga mahadceliyay ka jawaabida baaqi dawladda federaalka ee Soomaaliya inay xafiisyadeeda kaga howlgasho magaalada Muqdisho ama gudaha wadanka Soomaaliya taas oo qayb ka ah dadaalada dawladda Soomaaliya ay ku hagaajinayso hay'adaha beesha caalamka inay ka howlgalaan gudaha wadanka Soomaaliya xafiisyadooda ay ka soo raraan wadamada dariska wakiilka hay'adda FAO ayaa sheegay inuu aad uga faraxsan yahay kulanka maanta uu la qaatay wasiirka wasaaradda qorsheynta wakiilka cusub ayaa sheegay in wax weyn ay ka qaban doonaan sektarada kala ah ama qaybaha kala duwan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay dawladda federaalka Soomaaliya si dhow ay kala shaqeyn doonaan wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dalka oo la hadlay telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ka go'an tahay sidii loo hagaajin lahaa wada shaqeynta hay'adaha beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya iyadoo ay ku howlgalayso hay'adaha beesha caalamka howlgalka dawladda Soomaaliya ee ah in gudaha wadanka Soomaaliya laga fuliyo mashaariicda hay'adahana ay ka howlgalaan magaalada Muqdisho hay'adda FAO ay wakiilkeeda Muqdisho xaruntiisa Muqdisho ay ku soo celiso meeshii xarunta bariga deganaan jireen oo magaalada Muqdisho ay xarun noqoto Nairobi aan ka shaqeynin tan waxay calaamad u tahay baaqi dawladdu ku baaqday in dhammaan hay'adaha caalamka ee Soomaaliya la shaqeeya wadanka joogan hay'adda FAO ama hay'adda cuntada adduunka waxaan ku mahadnaqaynaa inay soo dhaweeyeen baaqa dawladda wakiilkoodana oo magaalada Xamar deganaan doono ka shaqeyn doono waxaan rajaynayaa hay'adaha kalena ku daydaan arrintan waa arrin maanta taariikhi ah in 27 sano ka bacdi in hay'adda FAO oo wakiilkeedu Xamar soo degay oo ka soo guuray Nairobi marka arrintan soo dhaweynaynaa waan mahadsan yahay waxaan rajaynayaa hay'adaha waxay dhiman inay ku dayan doonaan iman doonaan haddii alla marka dhamaantiin mahadsantiin dadka soo qayb galay waxaan fiirin doonaa sidoo kale qorshaha u degan hay'adana ku shaqeyn doonto dhowrka sano ee soo socda waa isla fiirinay hadda ka hor hadda waxaan rabnaa inaan fiirino sanadkan inta ka dhiman iyo 3 sano ku xigta 4 sano ku xigta si qorshayaashooda iyo qorshaha qaranka qorshaha dawladda isku waafaqaan waxa ilaa haatan si rasmi ah gudaha wadanka Soomaaliya xafiisyadooda ugu soo guuray hay'adda UNICEF iyo hay'adaha kale kuwa kalena waxa ay ku howlan yihiin sidii ay uga jawaabi lahaayeen baaqa dawladda Soomaaliya